Shirkadda maalgashiga iyo dhismaha ee Dalmar Trading and General Services ayaa siisay macaamiisheedii maalgashaday shirkadda lacagahoodii faa'iidada ahaa maalinimadii Sabtida ee 11-kii bishan Afraad 2020. Shirkadda ayaa siisay macmiil kasta oo maalgashaday lacag $1,500 $500 halka kuwa ayagu dhigtay $500 ay qaadanayeen lacag $250. Faa'iidadani ayaa tii ugu badneed abida ay bixiso shirkad maalgashi ee ku taala degmada Beled Xawo, ayadoona sidoo kale shirkadda ay sheegtay in iminka ay furan tahay isdiiwaangelinta isla markaana la qabanayo macaamiil cusub ayna ku eg tahay waqti kooban. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Shirkadda dhismaha iyo maalgashiga ee Dalmar Trading and General Services qaybteeda degmada Beled Xawo ayaa bixisay faa'iidooyinkii lacagihii ay maalgashadeen macaamiisha xafiiskani oo furmay muddo bil ka hor ah sida ay u ballan qaaday macaamiishooda. waxa ay lacagta ay maalgashadeen oo kala duwan dadkii dhigtay $1,000 waxay faa'iido ahaan u qaateen $500, sidoo kale dadka dhigtay $500 waxay faa'iido ahaan u qaateen $250. sidoo kale dadkii $4,000 maalgashaday waxay qaateen faa'iido dhan $2,000. iminka waxaa furan diiwaangelinta macaamiisha oo ay xirmi doonto goordhow insha Allah.